Nin u dhashay dalka Norway oo la ilmeeyo wanaagga diinta Islaamka kadib markii ashaatinka loo qabtay. أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. Si aan u gadagalno muuqaalkan walaal waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanidin badan. Nin u dhashay dalka Norway ayaa la ilmeeyay wanaagga diinta Islaamka kadib markii ashaatinka lagu qabtay mid ka mid ah masaajidada ku yaala dalka Norway gaar ahaan caasimadiisa Oslo. Ninkan u dhashay dalka Norway ayaa Islaamka qaatay kadib markii uu dhacdooyin la yaab leh la kulmay lama filaan ku noqotay isagoo in muddo ah saaxiib la ahaa walaalo muslimiin ah kuwaasi oo qayb ka qaatay in ninkan uu diinta Islaamka qaato. Ninkan ayaa horey waxa uu haystay diinta Kirishtaanka waxa uuna aaminsanaa in diinta Kirishtaanku ay tahay diin wanaagsan balse waxa uu saaxiib la noqday mid ka mid ah walaalaha muslimiinta ah ee ku taxan masaajidada ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway. Kadib markii uu ninkaas saaxiibkiisa muddo la socday ayuu sidoo kale waxa uu saaxiib la noqday walaalo badan oo muslimiin ah kuwaasi oo ku xiran masaajidda iyo sidoo kale machadyada markaas lagu barto isla markaana lagu horumariyo diinta Islaamka. Waxa uu sheegay in uu sanabiyada caabudi jiray sidoo kalena waxa uu baaritaano in muddo ah ku sameynayay in diinta Kirishtaanku ay tahay diin sax ah balse saaxiibadiisa muslimiinta ah markii uu la tashtay ayuu sheegay in uu baaritaano iyo sidoo kale isbarbardhigyo kala duwan uu ku sameeyay diimaha Islaamka iyo sidoo kale Kirishtaanka. Waxa uu sheegay in uu in muddo ah ku noqnoqday sidoo kalena uu tagi jiray kaniisadaha si uu markaasi u eego kutubaha yaala iyo in ay tahay diinta saxda ah midda Kirishtaanka balse markii uu la tashtay isla markaana uu fiiriyay in diinta Islaamku ay tahay diin sax ah uu go'aansaday in uu diinta Islaamka qaato. Walaalkan muslimka ah ee hadda diinta Islaamka qaatay ee u dhashay dalka Norway ayaa waxa uu in muddo ah ku noqnoqday sidoo kalena uu tagay masaajidda ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway si uu markaasi wax badan uga weydiiyo iyo su'aalaha uu qabo culimada masaajidadaasi. Waxa uuna sheegay in marar badan laga qabtiray su'aalo badan uu ka qabay diinta Islaamka iyo sidoo kale aakhiro. Waxaana isaga iyo sidoo kale saaxiibadiisa muslimiinta ah wada socda ay tageen masaajidka si uu diinta Islaamka u qaato ashahatiinkana loogu qabto. Markii uu islaamay ashahatiinkana loo qabtay ayuu waxa uu la ilmeeyay diinta Islaamka iyo qaadashadiisa isagoo farxad badan ay ka muuqato. Waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay imaamkii masjidka iyo sidoo kale culimadii masjidka iyo jamaacadii ku xirneedba.